gabadha ayadoo yar la meheriyay ilaa ay ka qangaarayso ka hor ninkii loo meheriyo looma dhiibi karo gurigiisana lama geen karo muuqaalkan saddex qol iga gaarsiiyay feminismka nukraanida iyo kuwa caamada iyo dumarka la caadifadooday gabaraan qangaarin oo yar ma la meherin karaa meher ma qaban karaa ma la nikaaxin karaa kama hadlin ma la guri geen karaa iyo ma loo galmoon karaa meherin baan ka hadlaynaa afarta madhabka xanafiyada iyo madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada afarta wax isku waafaqsan in gabar saqiira in la nikaaxin karo meher u qaban karo ابن عبد البر وحو سو غوري اجماع مسلمين inay ku jmaaceen gabadha saqiirada in la nikaaxin karo la meherin karo la guurin karo waxay ka dhigantay culimada islaamka ilaa yoomina hada ilaa nabi maxamed alayhi salaatu salaam 99.9% inay qabaan gabaraan wali guur gaarin gabaraan wali qaan gaarin in meher iyo nikaax u qaban karo waxay dhahan dadka qaar baa Soomaalida saan tiri hebel faraxya saan yiri war diinta yaan laga been sheegin wadaada ashaaciro isdaad raaciya caamadan arkayo meesha loo badan yahay u xoobsibtay markay xaaladda adkaatay okay wadaadada dhif iyo naadir baa laga sheegaa inay qabaan macnaha ma la meherin karo iyagoo laftirkooda markaa sii baarta waxay qabaan 9 sano in lagu goorin karo qaangaarnimada 9 sano u qabaan okay masalada marka intaan u soo guda dhicin markaan gudaha u soo daadago maxaa loo dalishadaa aayada quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri wallahi ya isna min al-mahid min nisaa'ikum in irtabtum fa'iddatuna 3 ashhur wallahi lam yahidna waxaan uga socdaa wallahi lam yahidna iyo kuwa wali dhiiga aan ku dhicin gabdhaha la furaya lagu daray kuwa dhiiga aan ku dhicin culimada badankood waxay ku fasireen in laga wado gabdhaha yararka wali aan dhiiga gaarin culimada qaarna waxay dhahan waxa laga wadaa gabdhaha dhiig macnaha uu ku dhaco dhiig us waligeed ku dhicin ama cilad dhiig ooga joogsaday labadaba aayada way soo galeen isma diidayaan hadaba waxay dhaheen aayada waa ka been sheegteen hadaba inaan ka been sheegnay in kala markaan dib u laabano ابن كثير وحو ليه يقول تعالى مبينا لعدة العائشة وهي التي قد انقطع عليها عنها الحيض لكبرها إلا أسوغا روحي وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة العائشة 3 أشهر وحو ليه وحا لمد آيادا وحا لغا ودا يعني الشيء يساوي ليه قبلها يركو ولي ديغ حيدك ولي أسان كدعين waxa kala soo kala ku fasiray baqawi waa ku fasiray qurdubi waa ku fasiray ibn jarir baa maray wali ibn jarir wuxuu leeyahay wallahi lam yahidna wuxuu leeyahay wakadalika adadu la lam yahidna min al-jawari lisar yani gabdhaha yararka ayagana wali dhiig uu ku dhicin baa laga wadaa waxa laga hadlay ayada ay sheegayso waxa kamid ah wuxuu ka soo guuriyay marka yani sidaas oo kale waxa ku fasiray wuxuu ka soo guuriyay mujahid suddi ibn zayd qatada dhahak wuxuu leeyahay lam yablughna al-mahid yani zaman al-hayd wali aan gaarin hada fiiri waxa la rabaa in lagu dhaho iyaga iska yiri ولو ابن جرير الطبري وحو سو غوريي اسغا ابن ابي حاتم وحو سو ساري ولو وصيفه فاهي ابي بن كعب والصحابي با وحو ليهي ان الناس من اهل المدينه دد غير مدينه markay aayada soo degtay aayada suurat al-baqara markay soo degtay cidada dumarka sheegaysa ay waxay yiraahdeen rasuul allah waxay yiraahdeen laqad baqiya min ciddati an-nisa'i عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وحان رسول الله لا شيغين بيليهين سورة البقرة عدوينك دمرك قاركود وانا قبدا ديغا كقوستay waa yeesha ah gabadha yar ee wali dhiiga uu ku dhicin iyo gabadha uurka la cidadeeda lama sheegin waxa soo degtay wallahi isna min al-mahdi aayadana soo degtay bal fiiri sabab nuzul wuxuu sheegay saxaabiga laga warinaya uu soo guurinaya nabi maxamed inta la weydiiyay gabdhaha wali aan yaani cidadooda la sheegay waxa kamid ah gabadha saqiirada ah markaas ay aayadan soo degtay waana athar saxiix oo sugan ayada markaa ka gudbay ku cadahay gabaraan qaan gaarin in la yaani la seel loo faray hadaan la gursan marka horeba okay waxa kamid ah sunnada Aisha radhiyallahu ta'ala anha waxay Bukhari iyo Muslim soo saareen anna nabiy sallallahu alayhi wasallam tazawajaha wa hiya bintu 6 sinina wa udkhilat alayhi wa hiya bintu 9 wa makathat indahu 9 Aisha waxa nabiga lagu meheriyay lagu guriyay leedahay anoo 6 sano jira wuxuuna igula aqal galay anigoo 9 sano jir ah nabigana waxa la noolaa 9 sano 18 jir buu kaga dhintay saas waa cadaha markaas la raba in laga dhaadhiciyo taariikh waxay sheegtay xisaab baan isku dhuftay war xadiis cad oo Bukhari iyo Muslim ku jira oo ahad muslimiinta kamida oo san daciifin oo cid dorta aysan ka hadlin baa la rabaa in saas lagu kala wareejiyo okay waa cajiib okay waxa ka hadlaynaa marka gabadha in la meheriya garanay ma la guri gali karaa ay ma loo tagi karaa iyadoo aan qaan gaarin taas waa maya gabadha ilaa ay qaan gaarto oo ay ma aragtay jir ahaan iyo da ahaan u qaan gaarto ay xamili karto ka hor looma dhawaan karo laakiin in la sii meheriyo waxay ka dhigan tahay ama la sii nikaaxay in macnaha nikaax ninku u haya bas اوكي maxaa keenaya waxa ka nabiga ka soo alayhi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri la darara wala dirar dib ma jiro iyo isdibid midna gabadha iyadoo guur gaarin oo jirkeeda xamil karin in loo xareeyo la yiraahdo loo gurigeeyo oo loo galmoodo mamnuuc weeye mana ogola shariicadu okay waxa kale oo kamid ah okay marka nikaaxaas marka wuxuu ku xiran yahay gabadha iyadoo yar nabiga waxa ka soo alayhi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri la tunkahu al-bikru hatta tusta'dan ma guurin karo illa ayada idan la weydiiyo okay gabadhan way yartahay idan lama weydiin wala la nikaaxiye waxay leeyihiin culimadu waxa la sugayaa markay ka qaan gaarto markaas khiyaarkeeda la weydiinaya
aabe adigoo yar baan ku guuriyay ninkaasan ku nikaaxiyay haday aqbasho ku qanacday raali ku noqoto saas ninkeeda xaas ugu tay ku raacaysa haday diidana nikaax waxba kama jiraan maxaa u daliila nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam goor baa u timid waxay tiri inna abi zawajani ibna akhihi liyarfa bi khasisatahu nabiyo aabahay wuxuu ii guuriyay bay tiri wiil adeer u yahay suu iigu soo dhiso wiil laga aqli badan yahay buu ahaa faja'ala al-amra ilayha nabiga arrinka iyo talada gabadha gacanteedu galiyay markaas wuxuu ku yiri adaa khiyaar kale hadaa aqbashana waa jira hadaa diidana waxba kama jiro markaas waxay tiri fa inni qad ajastu ma sana'a abi aabahay wixii uu sameeyay waan yeelay oo waa ogolaaday ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء لكن waxaan rabay aabayaashu in dumarku ogaadaan aabayaasha inaysan arinta wax ku lahayn marka gabadhan ayadoo yar la mehriyay waxa la sugi doonaa markay wanaagto khiyaarkeeda ayada inay aqbasho haday diidana nikaaxas waxba kama jiraan noqonaysa laana khiyaarkeeda markay qaan gaarto okay waxa la isdiyaa gabadhi maadaama ay yar tahay ee sagiira ay tahay ninkii ayadoo yar loo mehriyay ma loo dhiibaya oo gurigiisa ma u kaxaysanaya ma wadanaya culimada xataa anagu Soomaali Shaafiiciya banahaba marka culimadana Shaafiicida waxay leeyihiin xitaa haduu thiqa aamin yahay gabadha yarta wali aan qaan gaarin looma dhiibayo aan wali guur gaarin maxaa yeelay maadaama ninka gabadha loo nikaaxiyay aamin lagama aha waa bini aadan uu guriyan kara ayadoo wali saqiir oo xamil karin buu ma aragtay isticmaali kara guriga waalidkeeda joogaysa ninkana looma gacan gelinayo war wixii diin in la sheego way ilaahayna laga cabsado oo diinta aan laga ban sheegin intaas rabina soo koobo